هذا شغلة ما شغلة بدن مرنا فائدة يعني كهلا مرنا دبعتها كلكم فائدة كان كهلا يا ديان كبلاو إن حنكم عليا نلش كرسكيبه nasra aad bay u yar tahay shaqadan waxaa aad loogu garanayaa inay gutaan ragga waa shaqo ka kooban farsamooyinka kala duwan oo dhanka makaanikada ah waxay awoodaa in ay si hufan u qabato dhammaan howlaha farsamo ee ay ka qabato geerajka ay ka shaqayso بسم الله magacay waa Nasr Xaaji Xuseen Ibrahim waxay igu soo ay ugu qasbayna makaani noqdo waxay tahay shaqalaan wadan ka jirtay iyadoo shaqada taal hadana shaqooyin waa la helaa laakiin iyadoo shaqada taal hadana loo mahelisid qof ku caawiyo oo garab ku siiyo marka maadaama wadankii dagaal iyo abaar ay saameeyeen aniga waxaan ku diiday inaan wax u qabto shaqada i banaaneed oo maanta aan qaban karin waxay ahayd maanta shaqada aad uma badna laakiin waxay ka shaqayn doontaa baabuur nooca Lyon ah waa baabuur nooca raaxada inkastoo uusan joogin milkiilaha gaariga haddana toos ayay ula falgalaysaa Nasra oo ku dadaali doonta inay hagaajiso meelaha uu ka ciladaysan yahay baabuurkani hablaha Soomaaliyeed waxay awoodaan in ay ka faa'iideystaan fikradaha noocan ah oo ay qabtaan shaqooyinka ay ragga qabtaan oo kale أنا لو صناعة كشقينا شقان إن لح بلاد عمل برشايا أنا يعني أو يعني برناي إن ما مركي كلامتنا عادي وعن مشاعر والعقل قطعها إن شقان إنه وعدتها وين اللي بدن تعقف كل يوم كلام درتاني والجبرة وحاول قصبة وعدم جرتهم ما دام أنا أبيه ويعني ويلا ولا لين هاد وريرين حن كل ذي إن أنا لش قصي وحك بدله وعن وحنا ترى tani su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa balse Nasra ayaa sharaxaysa waxa la gudboon gabdhaha Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ay ku hayso gudaha wadanka gabdhaha Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogan waxaan u sheegayaa inay awood leeyihiin karti ay leeyihiin waxay qabsan karaan noloshooda ay bedeli karaan wax walba ay samaysan karaan marka guuleysanaysa guusha meesha ku soo jirta ma ogaan kartaa adiga marka wax walba inay qabataan samarkii dulqaadka abadisan waa ogaa gabdhaha waa la jibiya ولا اللي ده واحد مقابل كتاني الله لكن وحول بيقابن كران قبل هدي أي كنا واحد خبصة عن روان نسيو كلامته إن تهريب كي وحي هذا يعني جوديان أنا نقول لك ما أنا فكرين أنت هي وأنا من سنة هنا عدد هذه المس مركا وحن رأي قف جور كستو صومالي مرو بدون ذلك جوبته مش أي جوبته قبل هذا الشقاء تاني فرصة نقول لرجالنيسا سدد بدن أو دليرة أو صوماليات أي أفكران una abuuraan jawi shaqo helis ama shaqo abuuris ah sida Nasra ay aaminsan tahay in mustaqbalka ay hiigsanayso aragti ah in ay milkiso ama ay milki doonto howlaha noocan oo kale ah aniga waxaan aad u jeclahay dadka aad ka u liito ma jecel dadka lacagta waxa leh waxaan aad u jeclahay dadka masaakiinta inaan la sheekaysto oo hadafkooda wax la qabto aniga waxaan rabaa inaan meel kasta Soomaaliya joogto inaan caawiyo dadka aad ka u liito waxaan rabaa inaan dad badan inaan shaqooyin u abuuro maadaama aan hadda ana qof shaqeys oo shaqaalaha inaan aniga aan wax hadaf yeeshto oo aan kambaniyaal aan abuurto dhanka inaan garaasho waaweyn aan samaysto aniga leeyahay inaan wax badan qabsado aan caawiyo dadka masaakiinta
inaan mar walba garab istaagsanaado